furaha caafimaadka nolosha waxaa idiin soo jeedinaya Dr. Jawhari. waa maxay cudur? waxaan ka hadlaynaa qeexidda uu leeyahay cudur. cudurku waa xaalad kasta oo aan caadi ahayn kaasoo sababa dhibaatooyin guud iyo mid gaar ahba ahaaneed kuna dhaca qaab dhismeedka jirka iyo shaqada jirka bini'aadamka. gargaarka degdega ah. waa maxay gargaarka degdega ah? gargaarka degdega ah waa caawinaad ama kaalmo ku meel gaar ah oo la siiyo qof dhibaataysan ama shil ku dhacay ka hor inta aan la geyn goob caafimaad. ujeedooyinka gargaarka degdega ah. ujeedooyinka gargaarka degdega waxaa ka mid ah: 1. si loo badbaadiyo nafta bini'aadamka, Allah ayaa wax badbaadiye. 2. in laga ilaaliyo in uu ka daro dhaawaca qofka soo gaaray. 3. in jeermis dibadda ka soo galay sidii looga ilaalin lahaa dhaawaca. 4. in lagu dadaalo sidii dhaqsiyo uga bogsoon lahaa dhaawaca. sharciyada gargaarka degdega ah waxaa ka mid ah qodobada soo socda. 1. gargaaruhu waa in uu diyaar u yahay in la tababaro kadibna uu isticmaalo xirfadiisa tababar. 2. si degan u fiiri xaaladda ee ha ku degdegin. 3. haddii aad la kulanto shil, dooro 2 qof si ay kaaga joojiyaan dadka buuqsan. haddii shil baabuur yahay, dooro 2 kale si ay kaaga joojiyaan baabuurta kale. 4. waxqabad degdeg ah ayaa lagaaga baahan yahay. waxyaabaha dadka lagu gargaaro waxaa ka mid ah qodobada soo socda. 1. wound oo ah dhaawac. dhaawaca qofka soo gaaray waa in lala tacaalaa. 2. hemorrhage oo ah dhiigbax. waa in dhiiggaasi la joojiyaa si uusan bukaanka xaalad kale u galin. 3. fracture oo ah jabniin. lafta jabka soo gaari waa in si dhaqsile loo xiraa. 4. shoog oo ah argagax. waa in shooggaasi la daaweeyaa si uusan bukaanka xaalad kale kaaga galin. 5. baan oo ah gubasho. 6. bitis oo ah qaniinyo. waa in la daaweeyaa sunta cayayaanka qofka qaniinay. haddii aad cashir ka fahantay, waxaa la gaaray xilligii aad naftaada tijaabin lahayd. waa tijaabo imtixaan oo ku saabsan wixii aad soo baratay. waxyaabaha dadka lagu gargaaro waxaa ka mid ah kuwa soo socda marka laga reebo. waxyaabaha soo socda oo dhan waa waxyaabaha dadka lagu gargaaro marka laga reebo. macnaha midda aanan ku jirin ayaad waxaad noogu reebaysaa qaybta hoose ee commentiga. A. hemorrhage oo ah dhiigbax. B. insomnia oo ah hurdo la'aan. C. shock oo ah argagax. D. baan oo ah gubasho. soo midda aanan ahayn waxyaabaha dadka lagu gargaaro qaybta hoose ee commentiga noogu reeb. aadaad u mahadsan tahay. muuqaalka hala sheer gareeyo. haddaad channelkayga YouTube-ka caafimaadsan ku cusub tahay, fadlan subscribe saar si aad ugu mid noqoto saaxiibada sida tooska ugu xiran YouTube channelkayga caafimaadsan.